بسم الله الرحمن الرحيم واسكولكي فيوتشر ومعلنكي مصطفى ساينسكا waxaan bilaaban doonaa duruusteena online ka ah hal chapter bayno haray halka chapter bayno dhamayn doonaa insha Allah maanta iyo maalmaha soo socdaba waynu ka soo qaadanay chapter-ka waa chapter-kii 12aad waxaad ku soo dhawaan doontaan chapter-ka 12aad ee la yiraahdo weathering chapter-ka 12aad waxaan soo qaadan doonaa weather macnaheedu waxa weeyaan waa cimilo gooreed af Soomaali lagu dhahdaa way the word weather kelmadda weather is the atmospheric condition waa xaalad gibilka hawada ah in a local area ay meel leedahay of a short period of time waqti gaaban weeyaan weatherku waayahay waxaan eegi doonaa weather instrumentski ama qalabkii lagu cabirayay iyo weatherkii ayaan eegi doonaa anemometer waxa uu noqonayaa dabayl beeg baa la oranayaa dabayl beeg oo waxay cabiraysaa wind speed xawaaraha dabayshu ay ku socoto ay anemometerkaasi cabiraya وهي rain gauge waa maxay af Soomaali waxa lagu dhahdaa roob beeg ayaa lagu dhahdaa oo wuxuu cabirayaa rain roobka ayuu cabirayaa waayahay thermometer waa kulbeeg waa qalab lagu cabiro temperature-ka kulka heer kulka lagu cabiro heer kulkii weeyaan kaasina temperature waa heer kulkii hygrometer waa huurbeeg isaguna waa huurbeeg waxa lagu cabiraa huurka humidity-ga ayaa lagu cabiraa way example tusaale hal maalin ayaa la record gareeyay wind cloud rain vapor iyo degree celsius hal maalin la record gareeyay oo ah maalintaas ku beegnayd 12 bishii afraad 2017 12 bishii afraad 2017 waayahay 12 duhurnimo sababtan 12 duhurnimo soo qaadanay waxa weeyaan halkaas degree celsius waa maxay waa 27 habeenkii inta badan 27 degree ma gaadho waayahay wind dabayshu waxa weeyaan waa north waqooyi bay ka soo dhacaysaa waa n waxa loo soo gaabiyay north waqooyi ayay ka soo dhacaysaa dabayshu waa 0 meter per second that means hawadii ba taagan oo waxa uu ima jira maadaama 0 meter per second ay 0 ay tahay cloud stratus waxa weeyaan halka buug wuxuu ka dhigay halka eebo ka dhigay buug halka eebo ka dhigay laakiin qoraalkeeda saxda waa maxay stratus waa daruur teel ah oo cirka badbanaan yahay badna uu yahay bar ay daruur qarisay oo daruur aanis haysan weeyaan rain waa roobkii wax roobooda ay ma jirto waa 0 mm wax roobooda ay ma jiro vapor waa xadiga biyaha hawada ku jira ama uumibaxa wax uumibaxa la yiraahdaa isaguna ma jiro oo waxa weeyaan waa 0 degree-ga maalintaas ama maxaan ku radaa heer kulka maalintaas wuxuu ahaa 27 degree celsius ayuu ahaa waayahay climate waa cimilo tii hore waxaan ku soo qaadanay cimilo gooreedka waxaan ku soo qaadanay weather kana waa maxay waa climate waayahay climate describes cimiladu waxay qeexdaa weather conditions xaaladaha cimilo gooreed of a given place meel ay leedahay of a long period of time watano waqti dheer tii horena maxay ahayd short period of time waa weatherkii kaasina waa maxay waa long period of time waayahay the word climate kelmadda climate comes from Greek word waxa ka timi kelmad Greek ah oo la yiraahdo clima ayaa la oranayaa referring taasoo ku tacalluqda to the inclination of the sun janjeerka ay cadceedu janjeersan tahay that means janjeerka waxa la oranayaa markay cadceedu koonfur taagan tahay iyo markay cadceedu taagan tahay waqooyi ay taagan tahay waayahay markay koonfur taagan tahay waa maxay waa marka ay kulaalaha kansarka taagan tahay markay waqooyi taagan tahay kulaalaha kansar markay koonfur taagan tahay kulaalaha waqooyi kulaalaha capricorn marka wax weey inclination waa janjeer kolba waqooyi buu janjeedha kolla koonfur ayuu janjeedha waayahay the climate is influenced by cimilada waxa saameeya qodobadan baa saameeya the complex structure and composition of the atmosphere cufka hawada ama cufka gibilka hawada ee kakan ayaa saameeya ocean transport heat waa sida ay baddu u qaadato kulka ama kuleelka u qaadato elevation waxa weeyaan waa kala sareynta dhulka ama jooga dhulka
oo meelaba meesha ka sareyso ka qabowday meelaba meesha ka hooseysana way ka kulushahay train waa qaab dhismeedka uu dhulku u samaysan yahay waayahay distance from the ocean inta ay u jirto badda inta ay badda dhulku u jiro tusaalahan kale berbera badda way ku dhowdahay oceanka way ku dhowdahay waa kuleyl hargeysina oceanka way ka yar fogtahay waa qabow Addis Ababana oceanka aad bay uga fogtahay oo iyaduna way ka sii qabowday hargeysa waayahay lakes harooyinka laftoodu way saameeyaan cimilada harooyinka laftoodu way saameeyaan cimilada oo waxay noqonaysaa meesha harada uga dhowdahay way ka kulushahay waayo inclination of the sun janjeerka cadceedda oo waxa weeyaan cadceeddu markay kulaalaha koonfureed taagan tahay ama koonfur markay taagan tahay waa kulayl cimiladu inta badan markay waqooyi taagan tahayna waa qabow